waxa dhamaaday boqolka maalmood ee uu horeeyay xukunka madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorashadii dhacday 15 May ayaa mar kale xukunka dib loogu doortay inkastoo imaatinkiisa aan cidina saadaalinaynin dhanka rajada waxa boqol tallaabo ka horeeyay inta badan murashaxiintii kale natiijada doorashada madaxweyne xasan uu ku yimi ayaa ahayd mid ka dhalatay hab kursi wadaaga iyo heshiis daneed oo dhex maray isaga iyo murashaxiintii kale oo codkooda ku biiriyay xasan sheekh wareega koowaad codadka uu helay waxay ahaayeen tirada taabacsan oo lagu daray tirada mudanayaasha dhaqaalaha iyo ballanqaadyadu dhex mareen taasoo isugeynta guud ay ahayd 250 cod oo kaliya halka wareegii ugu dambeeyana uu helay 214 cod oo ka kala yimi murashaxiinta kala Saciid Cabdillaahi Dani Xasan Cali Khayre Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo murashaxiintii codad ahaan Cabdiraxmaan ka hooseeyay habkan oo ka maqraati kacaya inaan madaxweynuhu talada ku iman doonin shacab oo banaanka ka riixaysa xildhibaanada iyo xulasho ka timisiiskooda labada aqal si aynu isula fahanno nooca doonista ama soo laabashada madaxweyne xasan sheekh ay ku timi hortaan isbarbardhig ku samayno labadii doorasho u dambeeyay dalka ka kala dhacay 8 February 2017 iyo tan haata 15 May 2022 sanadkii 2017 waxa Soomaaliya ka dhacday doorasho xambaarsanay 7 dareen diidmo musuqmaasuq la dirir faragelin shisheeye sumcad soo celin xatooyo nacayb ka dhiidhi ugaarsigii madaxda iyo haldoorka la beegsan jiray nacla diidanaa hoggaan xumo iyo kacdoon dadweyne oo wadaniyadi hagaysay xamaasadu waxay gaarsiisneed heer xildhibaanada wax dooranaya shacabku dariiqyada kuleytiga iyo kaladka ku dhaganaayeen iyagoo ku khasbayay in xildhibaanadu u dooraan murashaxa ay taageeradiisa ka midaysnaayeen natiijadii doorashadaasi ka soo baxday kadib dal iyo dibadba waxa isqabsaday dabaaldegyo iyo dibadbaxyo waaweyn oo aan taariikhda hore u soo marin doorashada uu ku soo laabtay madaxweynihii lagu riday doorashadii caynkaas ahayd bal iyana aan wax yar dib u jaleecno madaxweyne xasan waxa uu ku soo laabtay doorasho lagu waraabiyay nacyo isa jeejin dadweyne doorasho ololaheeda lagu galay oogid colaade hub urusi arin qabiil ku dhexdir dawladeed ilaa la isla gaaray qiil qalow shirka ay ka tashiga beelweynta hawiye waa mareexaan deegaankan u dhashay waa inay maanta soo baxaan farmaajo madaxweyne ma ahan farmaajo waa mareexaan shacabka ku dhaqan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa saaka bilaabay in guryahooda isaga hayaamaan kadib markii cabsi xoogan ay soo wajahday isla markaana xaafadahooda ay fariisimo ciidan ay ka sameysteen ciidamada mucaaradka kuwaas oo dagaal xoogan kula jira ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya maadaama ay diidan yihiin in hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya 2 sano ay ku darsadaan dadka ayaa bilaabay inay u jihistaan meelo kamid ah magaalada Muqdisho halka kuwa qaar kalena ay aadayeen dhankaasi degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose si ay uga gabaad galaan dagaalada xilligan u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kooxaha mucaaradka mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxayna kala hadleen xaaladda kala guurka ee dalka iyo waliba dhibaatooyinka soo laabtay ka jira magaalada Muqdisho odayaashan oo ka soo jeeday beelweynta Waceesle ayaa waxay wadeen xoolo nool iyo raashin waxaana ka gudoomay senator Muuse Suudiyalxo oo ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya garabkiina nimid waana soo daahnay anagala raali aad ku jibraal Waceesla
garabkiina roogna saddexdan oo hayo askarta lagu afuri hayo afuris dhala waaye karoon ma gashay hal aw waaye halkaas aw lagu afuriyo haddana waxa lagu jiraa dadaal badan lagu jiraa reediina nagadaya intaad ku jirtaa inaad isaga tagtid waddankan oo ku noqotid magaalada Buffalo 19 Worcester Road adreeska degareed waaye ama gada isaga laabo inaadan mar dambe aad guryaheena weerarna ka shaqay intaas ku saabsan yahay insha Allah salaanteena aan ku soo salaanay Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud Muuse Suudiyeelo anagoo beesh beel waxa isla iyo Sheekh Shariif kulli salaanta naga gaarsiyo waxaan tagnaa garab xoolahan keenteen waa xoolo afura sida sheegteen waxaana wax waa la kala leeyahay waxaana iskare nimanka uu soo gurmaday ummadooda iyo dalkooda habeenkii lagu kala baxay oo ahayd 15 May iyana sidee looga dareemay arla weydansanay jawiguna wuxuu ahaa mid aan la dareemin waxa ugu weyn ee la dareemayna waxay ahayd in carintii colaadeed iyo qabiil hurintii oo ahaa waran dadweynaha wadnaha kaga taagan uu ka go'ay sidaas oo ay ahayd haddana soo laabashada madaxweyne xasan sheekh dadweyne kama ay marnay caadiyan dunida oo idil doorashooyinka ka dhaca iyo dawladaha ka dhasha marleyba waxay curiyaan rajo ayay tan madaxweyne xasan sheekh inaanay rajo abuurin ama aan looba sacabtu waxa loo aanaynayaa raadadkii uu kaga tagay xukunka kolkii hore dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood ayaa qabay inay suurtagal tahay madaxweyne xukunka mar soo maray oo talada ku soo fashilmay 5 sanadood mucaarad ahaa iyo murashax mar kale talada ku guuleystay inuu haysto fursad iyo khibrad wada jir oo sababi karta kalkan inuu geediga qaran u hogaansho ka duwan galangashi uu kaga tagay ee gadaashiis laga rabay taasoo loo aanaynayo khibradda iyo muddada uu hore xukunka u soo hayay horta madaxweyne xasan sheekh muxuu ballan qaaday intaynaan gelin 100 maalmood boqolka maalmood ugu horeyso dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqan gelino waxa aan damacsanahay ee security-ga iyo political stability-ga iyo economic recovery-ga legal framework-goodii horta ugu weyn inaan salka u dhigno boqolka maalmood ugu horeyso dhowr sharci oo dalkan muhiim u ah ayaan baas gareyn doonaa boqolka maalmood ugu horeyso waxaan aad xoog u saari doonaa inaan soo gabagabayno arrintii deyn cafinta ama meel gabagaba ugu yaraan aan soo gaarsiino waxbaa ka dhiman yar waxaan rabnaa boqolka maalmood gudahooda inaan reform ku samayno hay-adaha amniga sharciyadoodii oo aad u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn iyo structure-kooda inaan reform garayno oo la federalize gareeyo lagu apply gareeyo nidaamka federaalka hay-adaheenna inta badan weli waxay u dhisayeen qaabkii ee dowladda dhexe ay wax walba ay ahayd waxaan rabnaa inaan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhexmara oo lagu federaaleynayo arrimaha muhiimka ah magaaladan inaan xaqiijinaan rabnaa inay amni noqoto si aan u xaqiijinana amniga muqdisho dhexdiisa leh kuma xaqiijin karno labada shabeelle iyo bannaankana waa ka xaqiijinaynaa muqdisho gudaheedana intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaan yeeli doonaa caalamkana waa la kaasho doonaa arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaana waan soo dhaweynaynaa ballanqaadyadaasi ma fuleen jawaabtu waa maya nabadgelyada dankeeda looma jeesan waxaana dhacay falal amni darro oo xoogan ciidamo beeleedyadii badbaado qaran hubka ayay dib ula galeen caasimadda oo wacyaal weerada maanta kufsi dil dhac iyo boob ayayna ku ekeeyeen magaalada waxaa la diiwaan geliyey in ka badan 1513 kiis oo isugu jira dhac weerar habeenimo dilal kufsi iyo dhaawacyo waxa kale oo soo laabtay ugaadhsigii al-shabaab ee laga suuliyey ee ahaa toogashada iyo hadcad magaalada lagu dhex toogto baabuur bambooyin hoosta lagaga xidho iyo weeraradii huteelada oo gaadhay in habeenna la haysto ballanqaadyadaasi way wada bureen oo baysteen kamuu fuline maxaa beddelkeed qabsoomay 23 bishii May ayuu madaxweyne xasan sheekh si toos ah ula wareegay madaxtooyada dalka si qoto dheer waxaynu u dul istaagaynaa warbixinteennana ugu eegaynaa boqolka maalmood iyo tallaabooyinka madaxweynuhu qaaday aan ku bilaabay kow hirdankii doorashada iyo sababihii wadamo badani gadaal uga riixayeen in nidaamkii hore meesha ka baxo waxaa qayb ka ahaa sida la yaqiinsan yahay mustaqbalka iyo sii joogitaanka maraakiibta shisheeye ee biyaha badda Soomaaliya
madaxweynuhu kulankiisii uu horreeyey kolkuu xafiiska tegay wuxuu la qaatay haweeneyda midowda Yurub u joogta Soomaaliya wuxuuna oggolaaday joojinta qorshihii qaran ee Soomaaliya maadaama mashruucii burcadbadeedu dhammaaday ay ku baadigoobaysay sidii maraakiibta shisheeye uga bixi lahaayeen badda Soomaaliya oo 10kii sano ee u dambeeyay balaayiintan oo kalluuna laga xaday. 2 tallaabada midii xigtay madaxweyne xasan sheekh wuxuu ooda ka qaaday siideynta lacagtii sharci darrada ahayd ee dowladda Imaaraadka muddada 3 sano ah Soomaaliya ka haysay taasoo dowladda Imaaraadku ka muquuratay inay raaligelin ka bixiso sharci darrada ay dalka Soomaaliya ku soo gelisay lacagtaas. beddelka madaxweynuhu wuxuu Imaaraadka ugu daray dhambaal raaligelin ah oo uu sii dhiibay ra'iisul wasaarihii hore Rooble. 3 inkastoo halku dhagiisa ololaha ay qayb ka ahayd Soomaali heshiisa ha yeeshee bilowgiiba madaxweynuhu wuxuu magacaabay shakhsiyaad waxyeello ku ah halku dhagiisa kuwaasoo loo aanaynayo ilaa qaad la yeelashada iyo jaalla ahaanshaha kooxaha xagjirka wuxuu keenay oo xilalka sare ku tahay kuwii laga mudnaa oo ay ku jiraan kuwii uu diran jiray xilligii mucaaradka shaqada ka liidato ilaa kicin gabiil iyo qeylqalow. 4 magacaabistii ra'iisul wasaaraha shakhsiyan hogaaminta madaxweynaha oo kalkiisii hore talada uu soo maray ahayd mid dakhra badan la daandaantay arami musuqmaasuq la iilgashay diidmo shacbi ah kana yeeshay madaxweynaha shakhsi miisaan ahaan iyo sumcad ahaanba ka cagacad ama ka aradan ahaanshaha xul ummadeed waxa la filayay inuu keeni doono ra'iisul wasaare kabi kara kaalmaha ku bannaan dhalin kara jawi meesha ka saara kalsooni darrada baaxadda leh madaxweynaha iyo shacabkiisa u dhaxaysa balse taasi beddelkeeda wuxuu ka doortay saaxiib u muuqda in xulashadiisu ku timi dhaganugeyl iyo haye iidhe oo keliya mudnaanta loo eegay maqal raaricin aan maya lahayn. 5 shaqadii kuwaasi xigtay waxay ahayd safarro sannadihii u dambeeyay Soomaaliya fagaarayaasha caalamka iyo gobolka ay dhacdaba waxay soo yeelanaysay yididiilo sumcadeed iyo tixgelin koraysa oo dhanka caalamka ah taasoo ay kaga soo bogsanaysay Soomaaliya faragelintii dariskeeda iyo shisheeyaha shishaba waxa dadweynuhu si weyn dhexdooda u raaligelisay inay meesha ka baxday magac iyo shakhsiyaad ajaanib ah oo lagu majeerin jiray inay Soomaaliya la leeyihiin go'aanadeeda ama u meerin jireen doonistooda. waxa waqtigaasi suuray dhaqankii ahaa Soomaaliya ee madaxweynayaal Isbaaliya ah oo addis u siman tahay safarada madaxda qaranku baxaana waxay ahaayeen kuwa qorshaysan. safarada madaxweynuhu baxay ku dhawaad 10 safar oo uu ku kala tagay dalal kala duwan weey xilli aan xukuumad la soo dhigin ayuu safarada baxay muddo ka yar 100 maalmood waxay ka badan yihiin safarada uu baxay dhowr sano safarada uu galay ra'iisul wasaaraha Itoobiya sidoo kale madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo la isku daray safarada uu galay madaxweynuhu way ka badan yihiin muddo 7 beri oo kaliya. waxa ku baxay safaradaasi madaxweynuhu galay 1,500,000 oo dollarka Mareykanka sida aanu ka soo xiganay hay-adaha maaliyadda Soomaaliya. ma jirto wax dan oo Soomaaliya ka soo galay safaradaasi waxaase jirta in safaradu dib u soo nooleeyeen dhowr arrimood oo dadweynuhu filayeen madaxweynuhu ka soo waayay. arrimahaasi waxa ka mid ah dan la'aan u socoshada ka ganacsiga siyaasadda isduleynta ku milanka muranada caalamiga ah kay baayac mushtaraynta masabka ummadda iyo masiirkooda. dhacdooyin dhowr ah oo safarada laga diiwaangeliyay ayaa jira kuwaasoo ay ka mid ahayd qaabilaad li'idii Imaaraadka madaxweynuhu 5 maalmood ayay ku qaadatay in la qaabilo wuxuuna soo laabtay isaga iyo xubno ka mid ah wafdigiisa oo dhaawacyo qaba lamana sheegin waxa helay ama dhaawacyadaasi soo gaarsiiyay. Turkiga ayuu tegay 4 maalin ayay ku qaadatay in la qaabilo. Masar buu tegay wuxuuna Soomaaliya ku dhex tuuray xiisadaha kululay webiga Niil. Kenya ayuu tegay wuxuuna soo laabtay isagoo qoyskiisa qaraabadiisa iyo saaxiibada qabiilka la ahiba ay yihiin ganacsadayaal jaadley ah. Uganda ayuu tegay wuxuu qarankiisa iyo qudhiisa nafeedba u soo hooyay ceeb iyo bahdil. wuxuu tegay Tansaaniya wuxuu dib u soo furay hotel laga xidhay 2017
wuxuu tegay Jabuuti waxaa loo xidhay bilada u gaarka ah Jabuutiyaanka dalkooda guulaha u keena waqti baa lumay wax si qaranku kama dheefin dowladda madaxda Soomaaliya waxa haysta dhibaato fara badan oo xoogan oo burbur dalka gudihiisa ka socda dib u heshiisiin la'aan iyo dalka badankiisa aan maamulin dhibaatada culus oo jirta waxa muhiim mar walba qofka madaxda Soomaaliya inuu awood saaro maamulka dalkiisa iyo hubinta in dalkiisu shaqeeyo laakiin wax fara badan oo ka yaala dalka dibadiisa iyo safarada ma jirto dalkuna waa dal faqiir waxba haysan lacagta fara badan ee ku baxaysa safarka dibadda loogu baxayo hadba dal la tigaya hadii la gelin lahaa dib u heshiisiinta ama caafimaadka waxbarashada ama abaaraha wax weyn bay ay tar lahayd marka madaxweynaha dalkiisu faqiir yahay sida Soomaaliya inuu ka safar bato madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha dalka hodanka macquul maaha waxa korka la haboon muhiim ah in madaxweynaha Soomaaliya awood siiyo wasaaradda arrimaha dibadda wixii arrimaha dibadda la xiriiray uu daayo halkaas isaguna uu dalka gudihiisa awood saaro safarada dibaddana iska yareeyo qarash fara badan iyo faragelin kaga imanaysa dalalka uu la shirayo danahooda kala hadlayo mooyee wax weyn Soomaaliya u taraysana ma jirto 600 maalmood waxay daaha ka rogeen inaan madaxweyne xasan habeen mooyee halkale u kordhin oo ay isku mid yihiin madaxweyne xasankii 2016 iyo madaxweyne xasanka maanta 5 sanadood oo tagay sawiradii isduleynta iyo shisheeye hoorsiga oo Soomaaliya ka suulay ayaa degdeg dib boorka looga jafay isqiimo tirida ayaa dhaqso u bulaash wixii sarreyn jiray ayaa hoos u soo noqday wixii hooseyn jiray ee la duugay oo madax hoos u dhigida iyo rukuucdu iyo qabla'aantu kamid ahaayeen ayaa dib boorka looga tumay oo sarreysiin helay 7 iyo dhowr maalmood oo cidlo kulmay kadib waxa lagu dhawaaqay xukuumadda si guud shacabka Soomaaliyeed uga warqabaan aan laba qodob ku soo koobo madaxweynaha waxaa loo tirin jiray kolkii hore madaxweyne ku suntan xigtaysiga qabiilaysiga injeclaysiga kala qoqob qaran sadbursi iyo kala sarreysiin maxaa taa iska bedelay aan eegno xilalka madaxweynuhu qalinkiisa ku qoray iyo cadadka mansabyada xukuumadda uu ka siiyay haybtiisa xukuumadda iyo qalinkiisa madaxweynuhu wuxuu qaatay qayb libax oon hortii madaxweyne Soomaaliyeed taariikhda isku darsan isaga iyo beeshiisu intaa xilal leh xukuumadda badhkii soo haray 3 buu ka kala dhigay madaxweynuhu qayb loogu tala galay in lagu la diriro maamul goboleedada kala ah Puntland Galmudug Jubbaland iyo Koonfur Galbeed qayb saaxiibadiis qaateen iyo qayb madaxweynuhu si dadban u qaatay oo aan dhinacnaba ahayn waxa soo raaca dhowr xil oo la siiyay kooxaha jirka ah ee kala ah al-shabaab iyo TPLF